yahay waxaan hadii alla idmo casharkeenan ku eegaynaa sidii aan u soo shuban lahayn programkii aan code-ka ku dhex qori lahayn. marka koowaad waxa qoraysaa Mblock, waxa qoraysaa Mblock. markaad Mblock qorto aad Mblock saa u qorto waxa ku soo baxaya linkiga noocaasa ayaa ku dhufanaysaan. markaad Mblock qortaan xoogaa internetka hada haysato haduu yara culus yahay oo kale maybe inay san hore kugu daawacmin laakiin uu iska fudud yahay, not too hard. internetka markuu saa kugu soo baxo Mblock oo kale ay sidan kugu soo baxdo hoos ba tagaysa ama halkan download baad baaraysaa. download mara kor ayay ku taalaa sidaynu arkaynay xagga sare ayaynu ku arkaynay download. waayahay download marka aan tagno waxaan isku dayaynaa inaan soo shubano programkii. hadda halkan lagama download gareynayo, ogaada bartani downloadkii ma aha tooska aha, waxayna geenaysaa meelaha kale ayayna geenaysaa. marka aad halkan timaadaan bartan aad joogtaan waxaa idiin soo bixi karaa waxa la yiraahdo programmadan ku soo baxaya. gidigood uma baahnin, waxaan u baahanahay version 3 kay ku taalo Mblock 3 for PC kaasaan u baahanahay hoos hadda soo socda. waa marka Windows XP maaha, idinku kana roganaysaan maadaama Windows isticmaashaan Windows 7 and above kaasa soo roganaysaan. markaad dhamaysaan aad soo shubtaan ayaad waxaad tagiysaan programkii. wuxuu noqonayaa program noocaasa. marka koowaad uu idiin soo kaco wuxuu noqonayaa program noocaasa. haddaan kan xidhno oo aan dhahno ha save gareynin fasaas, marka waxaan dhahaynaa saasoo noqonaya programka. marka uu soo kacona waa sidan, halkan uu kugu soo kacayaa. adigu okay baa iska dhahaysaa wax walba isagaa shaashada iska tegaya. shaashada markuu iska tago okay aad dhahdo way dhamaatayba, finish. intaasay ku eg tahay. xoogaa computerkan ayaa culus, xoogaa waqti ay qaadanaysaa inuu soo kaco. allow access duu ku dhahona yes baa iska dhahaysaan. firewallka ma soo geli karaa? firewallkana access ahaan siiya oo u ogolaada. okay dhaha marka okay dhahdaan waa programkii aan rabnay inaan koorka ku dhisno. waa robotkii iyo operationkii iyo sensingkii iyo controlkii iyo eventskii iyo soundkii iyo lookskii iyo motionkii, intaasoo dhan weeye. qaybo muhiim ah baa jira. marka qaybaha muhiimka ah waxaan ku eegaynaa iyagana next lessonkeena ayaan ku eegaynaa si aanu ula sii socono casharada qaybta ku sii xigta. waa ku mahadsantihiin daawashadiina. assalaamu calaykum.